wadahadallo madaxweynaha uu la yeeshay hay'adda lacagta adduunka mid uu la yeeshay bangiga adduunka labadana looga gol lahaa in Soomaaliya maadaama ay ku jirto ololaha deyn cafintaasna ay hay'adahan gacan weyn ku leeyihiin iyo sidoo kale garab istaagga dowladda federaalka Soomaaliya dhanka maxay ahayd dib u habeynta hay'adaha maaliyadda inaan runta iyagana kala fariisano oo u sheegno sida aan u rabno inaan ugu soo dabaalno wadankeena wadan hufnaan ku sifooba kulankii xalay madaxweynuhu oo la qaatay madaxweynaha Masar Abdul Fattah Sisi iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo dowladda Masar ay dhigtay gogashiisa maadaama uu madaxweynaha Masar Abdul Fattah Sisi yahay gudoomiyaha wareegga ee sanadkan ee midowga Afrika nuxurkii wadahadalladaasna waxa ugu muhiimsanaa in kastoon war-saxaafadeed ka sii deynaa haddana waxaan ku soo koobi karnaa in xiriirka labada dal loo celiyo halkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan iyo sidoo kale in labada dal ay abuuraan gudiyo ka shaqeeya sidii kalsoonida loo dhisi lahaa kalsoonida ka dhaxaysa labada shacab kalsoonida ka dhaxaysa labada dawladood taana in la sameeyo tan saddexaadna waxay tahay annagu Soomaaliya mar walba waxay u taagneed welina u taagan tahay in qadiyadda badda ee nagala dhaxaysa Kenya ay taalla maxkamadda caalamiga ah iyo garsoorka adduunyada ku heshiisana oo Kenya iyo Soomaaliya labadaba ay xubno ka yihiin inaan ixtiraamno una deyno inuu go'aan ka gaaro taasaan horena ugu adkaysanayna welina ku adkaysanayna